war degdeg ah aynu idinkaga hayno dhimashada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo geeriyooday. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa goordhow ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay xubno ka mid ah qoysaskiisa iyo ilowreedyo kale ay sheegayaan. Wararka ayaa sheegaya in Cali Mahdi Maxamed oo maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa magaalada. Cali Mahdi Maxamed waxa uu Soomaaliya madaxweyne ka noqday 26 Janaayo 1991 markii uu xukunka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre, wuxuuna xilkaasi si rasmi ah u hayay ilaa 3 Janaayo 1997, inkastoo muddadaasi ay dalka hareereeyeen dagaalo sokeeye oo aanu maamulkiisii shaqaynin. Cali Mahdi Maxamed waxa uu 1 Janaayo ku dhashay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa uu ahaa 28 jir. Wixii faahfaahin insha Allah gadaal ayaynu idinkaga sheegi doonaa.